السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمة بدن كسر هذا الجنال كنا ديرجلي نفتادا فضلا هذا هرنا نقول جوكتي سبسكرايب صار جنال كادو سبسكرايب كوهين لايك جري مقالك هدي ومقالك هدي كوع عصبش الدعوة يسون سبسكرايب تا هك حسدين لايك صار وإنه مهم لايك هذا ما أنت خسران نحن وهل لنا عنو جير مرحلة أذك سومري أولتيمو جولستي تذالا وجارا فضلا موضوعنا سوى نكسن ولا صع إن شاء الله waxbaad ka arki doontaa ama waxbaad ka dheehan doontaa haddii aad fikrahaysan qaybta comments kana soo qor waxaan guda galeynaa dhacdada wiilkaas dhacdadan waxay ka dhacday wadamada reer galbeedka wiil yar 6 jir ahaa xaalad adag ayuu soo maray waalidkiisa iyo asiga way kala fogaadeen macnaha waalidkiisa iyo way kala tageen asiga oo macnaha marxalad adag oo soo maray marka al-ultimo wiilkii asigoo xaalad adag marayo oo darbiyada iska jiifo waxaa ku soo dhacday bal ma wax sameeysido wax unda dhaqaaq aad sameeysid sometimes dadka markii duruuf haysato xitaa fikir badan oo ku soo dhaco maskaxdooda waa ay kala labayaan waayo qofka hadduu dismoral yahay ama niyad uu ka jabsan yahay waxba ma qaban karo marka wiilkii asigoo fikiraya ayuu wuxuu sameeyay meel yar ayuu jidka kamid ah ayuu fadhiistay kadib kaba iyo wixii kabaha lagu tolay iyo birarkii kabaha lagu tolay iyo sakiimo iyo maqasi iyo waxyaabo raadsaday ultimo wuxuu fadhiistay meel wadada kamid ah ee dadka isku imaadaan ay ku shaxaan wiilkii wuxuu sameeyay dadka meesha soo fadhiisto ayuu kabaha u nadiifin jiray ayuu kabaha u tirtiri jiray dadkii kabaha adiga ka go'an gees ka go'an uu toli jiray heer wuxuu gaaray ereyada uu joogo ama xaafadda uu joogo wadada uu ka fadhiyo xaafadda idil wixii kabo ka go'o inay u imaadaan oo u tolo marka dadka markay xaaladaas adag ku sugan yihiin hadda anaga Soomaalideena kuwa kabaha tolo ma dhahayo mana caynayo kuwa kabaha tolo waayo duruuf idan ayaa u geysay waxa rajeynaa qof walba oo dhibaataysan inuu dhibaatada alla ka dulqaado marka dadka qaar way u kala naxariis badan yihiin macnaha kabo oo adiga masaxa ama kabo casaynaya kadib lacag aan u qalbina la siinaa midna 1,000 shilin iyo 2,000 la siinaa soo qofkaas oo kale waa la dhiirigeliyaa midna hadduu ku tiro kabaha ama u dhiibato waxa la siiyaa 5,000 oo kale ama lacag roon ama 6,000 oo kale la siiyaa waayo waa meesha ugu wanaagsan oo asigana oo noloshiisa ku dabari karo haddii uu aruurto ajirna aad ka helayso naxariista waa qayb kamid ah bini'aadanimada marka wiilkii asoo xaaladaas ku jiro dadkii xaafadda idil u imaan jireen koobahay u keensan jireen waa u tirtiri jiray waa u toli jiray meeshii wuxuu ka noqday qof la kasaayo maasha Allah adiga ultimo nin mas'uul ah ayaa goobtii lagu shaaxay yimid marka cafeteria yimid waxbuu dalbaday u yimid marka mudane koobaan ku masaxaya idiibu dhahay okay Allah waa u dhiibay kabiyo u dhiibay oo masaxay marka ninkii wuxuu ahaa nin mas'uul oo company madax ka ama boss soo taqaano marka ninkii wuxuu u taagay lacag dhan $200 wuxuu dhahay shaqadaada aad u wanaagsan tahay kabahana waxaad u nadiifisay sida loogu talagalay bilaa xagar la'aan marka wuxuu dhahay saacan ka dambeeyo inta ma fadhin doontid company-an madax ka ahay marka company-gaas ayaan ka shaqaaleysiinaa noloshaadana way isbedeli doontaa okay maalin hebel la balmiyay maalin hebel iyo imaam wallahi hadda meelan u socdaa wad degsanahay marka wiilkii aad iyo aad ugu farxay waayo wixii carafkaaga ah way ku soo doontaan macnaha dadaal waa loo baahan yahay laakiin si kasta u dadaasho haddaadan caraf wax u leen waxaad waqtiga ku luminayso ma helaysid haddii aad caraf ku leedahane waad helaysaa marka wiilkii aad u farxay maalin maalmaha kamid ah waqtiga la gaaray oo la balamiyay company-ga aaday marka wuxuu dhahay maamulihii ayaa i balamiyay maanta waqtiga adiga hadda aan imaaday marka wuxuu dhahay maamulaha la waco ama xafiiskiisa la geeyo waxa rabo inaan la kulmo waa la yaabo wiilkii adiga wiil hebel oo meeshaas casay ka ay soo meeheen ha si maamula adiga oo i balamiyay u dhihi kartaa wuxuu dhahay horta aniga intaadan eedina aadan macnaha iriixina ama aadan i burinina horta maamulaha wiila ku taagan wiilka
caseeyaha ahaa dhaa xitaa wiilka caseeyaha ahay oo meesha cafeteriga agtiis kobaha ku casay wiilkaas ku yimid soo daahdo ku dhawaan gala hadii wax soo deyn ku dhahno iska laabana maamulaha u taga weydii dheh wiil hebel ku taagan xitaa tilmaamahaasi ninkii waa uu yaabay adigoo noocana macna dadka qaar waa fajci ku noqonaysa iyasmo marka oo yimid maamuluhu u yimid mudane wiila ku taagan wiil hebel oo meeshaas adiga qabaha ku tirtiray ku caseynay wiilkaas ku wuxuu marka maamulaha igu yeero dhahay ma soo daayo dhaa wiilka maxamed shu waysan wala soo daayay wiilkii gudaha soo galay maamulihii istaaga ugu kacay maamulihii istaaga kacay wiilkii uu salaamay soo dhaw dhahay wiilkii uu soo dhaweeyay marka waqtiga aan ku bilimay waa timid la dhahay marka waqti maadan ku darsan waqti maadan ka dhimin marka hawshaadana aad iyo aad u wanaagsan tahay qof daacad tahay marka saacadan wax ka bilaabato halkan ayaad shaqaale ka tahay bishiina anaha cadadaada fiican waa qaadanaysaa la dhahay marka wiilkii meeshii ayuu ka galay nolol qurux badan marka simbri daacad ahaw hadalkan waxa ugu talagalay ama sheekadan qisadan waxaan ugu talagalay in dad qaar waxa jiro hawshooda aanan u gudanin sida loogu talagalay marka mar walba hawshaada aad qurxiso ama meesha aad ka shaqeyso shaqadaada ay qurxsanaato adigana waad qurxsanaanaysaa macnaha waxa lagu sameeyaa improvement oo lagu saraa lagu qaadaya koral lagu qaadaya hadii aad dadaasho oo daacadnimada waxa ugu wanaagsan waa daacadnimada iyo aaminaada hadii aad aaminaad daacadnimo iyo hawlkar hadaad isku darsato intaba dhul ma dhacaysid marka aniga ka sukow muslimiin ayaynu nahay marka qof walba shakhsiya shaqaysta ama hadda shaqadoon ah ku dadaalo daacadnimada iyo amaanada waa waxa ugu wanaagsan qofka uu ku soo baxo qofnimadiisa marka waxaan filaynaa muuqaalkan wax aad ka fahanteen marka mar rabo inuu muuqaalka sii dheeraado marka qisooyin qaar hadaa haysaan qaybta comments-ka nagu soo wadaaga waxa laga yaabaa asxaabteeda igu xiran ما شاء الله فكري بدن إيه هاي مركز نلص شد قري إن شاء الله وإنه مقال كان مقال حلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا أنت أنا المقال كان أنا كبحن وحنذكوهم بلينا بقولك سبسكرايب أي جرسيسين مركب بقولك سيلا بجبارة لو بقولنا وسوقا إن شاء الله مركز هذا المقال كان كوي عصبي سبسكرايب كحكي اللوبن لايك نصار وشد قرينا أصحاب هذا إن شاء الله waad mahadsantiin asxaabteeda qiimiga badan inta igu xiran inta hadda muuqaalkayga daawanayso igu soo biirayso insha Allah inuu muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh